saaxiibtinimadu qiimaha ay leedahay cashar aynu ka qaadanayna weeyaan. Kan waa libaax saaxiibkii oo muddo ka maqan ayuu maalimaha ka mid helay. muddo ka bacdi wuxuu arkay si kedis ah ayuu arkay saaxiibkii. aad buu libaaxii u farxay, wuu soo orday wuu mucaanaqeeyey. kadib waxa weeyaan xayawaankani wuxuu xasuustaa sidii wanaagsaneed ee uu xanaaneyn jiray saaxiibkiisii muddada ka maqnaa. haddaba wuu ku booday si uu u dhunkado saaxiibkii oo muddo ka maqnaa, si uusan mar labaad uga tegin. aad ayuu u dhundhunkaday, meel kasta wuu ka dhunkaday. saaxiibnimada wanaageedii buu xasuustay. xitaa xayawaanku waa yaqaanaa qofka aada u xanaaneeya. aad buu ooyey, wuu ku dhegay, mudduu dhundhunkanayay. wuxuu isleeyahay saaxiibkaa xagguu talow ka yimi, xagguu ku maqnaa muddada sannadaha ee uu kaa maqnaa. saaxiibkii buu aada u dhundhunkaday si uusan mar dambe waxa weeyaan uga tegin sidii uu markii hore u sameeyey. lugtuu ku dhegay, saaxiib hayga tegin buu leeyahay. waxa weeyaan wadka mooye meel la hayga aadin, adigoo dhinta mooye. saaxiibkiina wuu ka yeelay, wuu la joogay. waa haldoorka islaamka halkan janalkan aad kala socotaan.